Ma ogtahay in guryo badan oo cusub ay dhibaato ula kulmaan kaliya hal qalad oo yar darteed? Qaladkaasi yar ma ahan quruxda guriga ee waa biyaha oo aan laga maarayn guriga. Marka guri la dhisayo, dadka badankoodu waxa ay fiiro gaar ah siiyaan naqshadda guriga, qurxinta, saqafka ama rinjiga. Laakiin waxa ugu muhiimsan ee inta badan la iloobo waa waxyaabaha aysan ishu qaban karin. Gaar ahaan aasaaska guriga, suuliyada iyo meelaha inta badan ay biyuhu ka agdhow yihiin. Waterproofing waa hab lagu ilaaliyo dhismaha si biyuhu aysan u dhexgelin, waana difaac ka hortaga qoyaanka, dildilaaca, qurxun oo uu sameeyo gurigu iyo dhibaatooyin kale oo mustaqbalka ah. Aasaasku waa lafdhabarta guriga. Haddii ay biyuhu galaanna, dhulku waa u daciifaa, dildilaacyo ayuu sameeyaa, guriguna hoos ayuu u degi karaa. Waterproofingka aasaaska guriga lagu sameeyana waxa uu guriga ka ilaaliyaa biyaha dhulka hoostiisa ah. Waxa uu kordhiyaa cimriga guriga, waxaana uu badbaadiyaa qarash dayactir oo qaali ah. maanta waxaan joognaa guriga magaciisa la yiraahdo Bangala B38 oo aan ka wadno between coating ama daamur marin. Shaqada tan runtii very important oo ah markii la joogo substructure-ka guriga ama qaybta hoose guriga. Sababta iyo ujeedada aan uga gol leenahayna waxa weeye chemical reactions markii la backfill gareeyo concrete-ka la soo shubay ee base-ka iyo structure-ka iyo start column-ka ah, markii ciidda lagu shubo inaysan ciidu la samaynin wax chemical reaction ah ama falgal chemical aysan la samaynin. Ciidu dabeecado gaar ah bay leedahay, haddii moisture noqon lahayd content, haddii noqon lahayd waxyaabo kale oo chemical ciidu ay leedahay. Waxaan kale oo uga gal leenahay waxa weeye inaanu maaragtay structure-kii aan soo shubnay birtii ku jirtay inaysan ku dhicin wax corrosion ah. Haddii qoyaanka ciidu ay leedahay uu gaaro birta, daamurkaas oo u dhaxaynin oo wax coating ama wax dahaaraysan u dhaxaynin uusan jirin, waxa suurtagal noqon karta in qoyaankaas uu gudbo birtana markaas ay noqoto mid corrosion leh ama daxalaysatay. Dhinaca suuliyada iyo meelaha inta badan ay biyuhu ka agdhow yihiin waa meesha ugu halista badan. Biyo joogto ah, qoyaan iyo tuubooyin qarsoon. Haddii waterproofingka la iska indhatirana, biyo ayaa derbiyada gala, dhulka iyo derbiyada ayaa dildilaaca, guriga oo dhanna dhib ayuu gaarsiiyaa. Balse haddii si sax ah loo sameeyo, biyuhu guriga uma gudbaan, qurxun ma sameeyaan, guriguna waa u badbaadaa. Waterproofingka oo la sameeyay xilli hore waa badbaado. Habraacyadan guriga biyaha looga ilaalinayo waa kuwa lagu sameeyay dhammaan guryaha ay shirkadda Amal Real Estate ka dhisayso gudaha xaafadda Amal Village iyo guud ahaan dalkeena.